aniga qaaliladan hadalka ay tiri ama midka lagu yiri waxa iiga xanuun badan oo aad iyo aad runtii aan oga xumaaday ogana calool xumaaday waa hadalka ay tiri gabadhaas dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee wiilka yarka dhashay. ilaahay ha u daayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan. waa walaalkiin Cabdullaahi Macali Xuseen. waan rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu markale dib inoo kula siiyay isagay mahadaasi oo idin loo sugnaatay. inta dhiban Allah ka dulqaado inta isugu toosan tahayna Allah u barakeeyo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan ku wada salino. aad baa u mahadsantiin. bishaaro haddaba haddii aad tahay hooyo Soomaaliyeed oo guri joog ah rabtana inay shaqaysato waxaan ku hayaa fursad qurux badan oo adigoo gurigaaga jooga aad gacmahaaga ku dhunkan doonto waliba meel kasta oo dunida aad ka joogto. haddaad tahay aabba Soomaaliyeed oo sidoo kale shaqo banaanka ah ka shaqeeya kuna soo daalay in banaanka uu ka shaqeeyo adigana fursad bay ku tahay oo ayaad aayar smartphone-kaaga ku shaqaysanaysaa adigoo gurigaaga jooga. aniga ayaa taas ka ballan qaaday maanta ila soo tijaabi. haddaba manager Shankaroon waxay ku haysaa fursad qaali ah oo adigoo gurigaaga jooga aad lacag iyo dhaqaale ku sameyn doonto isla markaasina qoyskaaga iyo qaraabadaada aad anfici doonto. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo caawisayna way ka faa'iideen fursadda qaaliga ah. sidoo kale manager Shankaroon waxay ku haysaa dawooyin dabiici ah haddii aad ka cabanayso calool istaag, kor olol, caga olol, jilba xanuun, gastric aan ka dhamaan, sokor, cholesterolkaaga, haddii aad ka cabanayso caado wareer iyo ugxantaada oo daciifta rabbi baa bixiye waxay ku siin doonaan dawooyin dabiici ah oo ugxantaada dib u soo kobciya. sidoo kale nimankana waxay u hayaan dawooyin dabiici ah oo raganimadaada jag kaaga dhigayso. alaabtan ha iga sheegin baa la yiraahdaa. manager Shankaroon oo joogta wadanka Canada dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna hore u soo caawisay baa maanta waxay diyaar kula tahay inay ku soo saarto doonta ganacsiga ee lacag sameynta adigoo waliba gurigaaga jooga oo aan qeyrka u gacan horsan. waliba ku sii darso oo sidoo kale dadka waayeelada iyo caruurta yaryar ee aneemiyada iyo dhiig la'aanta la ildaran waxay siinayaan dawooyin dabiici ah oo qaab dhismeedka jirkooda dib ugu soo celiyo. waan aaminsanahay fursadda qaaliga ah inaad ka faa'iideysan doonto. telephone numberka manager Shankaroon aad kala xiriirayso halkan ayuu kaaga muuqdaa. linkigeeda sida tooska aad uga xiriiri doonto dhinaca WhatsApp-kana waxaan kuu soo dhigi doonaa muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya. aad iyo aad walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga baa ku soo aragteen wiilkan yarka ah waa wiil yar oo de waalid aan u nahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo ilmo yar oo barbaaray oo waalidkiis oran Allah ka dhigo. ilmaha yarka ah maalmahan baraha bulshada aad baa loo dhaxwadaa. sheekadiisuna mudday socotay oo hadda ma aanay soo bilaaban. waxaan rabaa inaan idinla wadaago hadal gabadhii wiilka yarka dhashay ilaahay ha u daayo iyadana hooyo wanaagsan waa runtii hadal ay tiri baan doonayaa inaan idinla wadaago. laakiin waxaa ka horeeya waxaa la socotaan maalmahan qaaliladan oo ahayd gabadhii hore ee xaaska uu qabay Raaga Cabdi oo ayadana gabar Soomaaliyeed oo kale ah. ma Raaga Cabdi iyo gabadhii wiilkan yarka dhashay baa is haysta. labada qofood ama calaf ha isku keena ama calaf ha kala geeyo ama ilmaha isku dhalaan ama yeysan isku dhalin. labadan qofood iyagaa is calmaday iyagaa is doortay. intuu rabbi qadaray inay wada noolaadaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala baa jaangooyey. maalintay xagga samada ka soo dhammaato heblaayi hebel baa isjeclaa iyo sidan muxuu u sameeyey iyo sidan maxay u samaysay iyo wax cid ay ka saarayso ma lahani. maalintuu qalinkaa uu soo dhammaado labadaa qofood tood halkaasay ku dhammaatay. sheekada meeshay ka qurman tahay marka oo ay ka dhaqaaqi la'dahay waa meeshana bal yar dhageysta. naan xagga marayso laandheeraana way maxay ka qabiil bay ka baraysan si qurux bay ka baraysaa waa maya. laakiinse waxaad diidanta oo ka gogoynaysaa wiilka yarka oo labisana oo quruxda badan oo TikTok ka wiilka aabihiis ikraad weysiin meela aniga cunuga maanaha hadda haysto bal su'aal baa idin weydiinaya walaalayaal. wiilkaas aa sheegaysid cunuga hadduu dhalay waa kaasaa ilaa shalay waxaad dheedeen qaaliya dhahda ha sheegan. gabadhaan horta dhalinyarada ah ee wiilka yarka dhashay intii hadda baraha bulshada anaga aan ku arkaynay oo ka Soomaali ahaan aan baraha bulshada ku arkaynay waa gabar aad u afgaaban. waana shayga ugu haboon oo qofka bani aadamka maanta ay maradiisu ku nabadgeli karto inuu yahay qof afgaaban oo aan bulsho kale ku xadgudbin oo qof kale aan dhibaateen oo qof kale aan waxba ku sameyn. gabadhan iyo qaalina waxba kama dhaxeeyaan waa laba gabdhood oo Soomaaliyeed laakiin sheekada waxa karkarinaya
waa dad kale bal fiiriya waxa sheekadan karkarinaya waa dad kale wiilkan qaali ma aysan dhalin kama aysan dhalin gabadhana qaali baa ilmo iga dhashay ma lahan oo qaali ma haysato sheekada meesha ka qurmanta waxa waaye waa bulshada kale arinta macnaha waxa weeyaan dadka kale wax dad waxa jira raba inay maanta oo idil fidna ku dhex abuuraan labadan gabdhood inay fidna ka dhex abuuraan de haddii maanta oo dhan qaali fideogii loo soo diray oo magaceeda la sheegay oo sidan la leeyahay qaalina waa qof dumar waa bani aadin inay hadasho ku qasbanaanaysaa qaali iyo gabadhan waxba kama dhexeeyaan waxba iskuma aysan darsan qaar baa waxay leeyihiin wiilka yarka ee gabadhu aysaa ugu soo labistay baad ka maseertansamaya macnaha waa hadalkaas waa waxyaalaha fidnada abuuraya ee labada qof ee walaalaha ah xiqdiga hadalka aad u dhegeyso xiqdiga ku dhex abuurayo waaya waxaan usoo laabanayaa marka wiilkan yarkaa ilaahay subxaana wa tacaala ha koriyey oo mid baari ah oo sidaa hooyadii ay u jeceshahay isagana hadhow waajibkiisa u guta allaha ka dhige hadallada xanuunka reebay oo macnaha waxa weeyaan maanta dadka Soomaalidu dee intooda wax garadka ah ama waalidkuun uu dareemi karayo waa garanaysaan gabar qof dumar ah fiiriya oo ilma haysata oo gurigii ay tagta ama banaanka ay martaba cunuga yar ee ay dhashay lagu caaynayo sidan baad ku dhashay markaad dhalaysay sidan baad ahayd markuu saana ahayd waa lagu inkiray intee ka bax waa dareemi kartaan xanuunka qofka bani aadamka qalbiyan u soo gaari karaya oo qof walba oo ama waalid ah ama wax garad ah waa u dareemi karaya hadallada xanuun kale oo gabadhan ay leedahay waxa waaye darta maxaan sacabada u hoorsaday bani aadam kale waalid kasta baa dareemi karaya markay ereyada noocaas oo kale oo gabadhaas masaakiinta ah ee sida u afgaaban ay adeegsanayso sababta waxa ay leedahay dad aniga asaygayga ama bani aadam kale aan adiga dartaa ugu sacabo hoorsaday wax kale ma ahan waa inaad boqor ii noqotaa baan caadilkaaga toogay maahir hooyo noqo mid aan ku ilaabo dhibka aan soo maray meesha kale arrintii ka qarad baan kuu sheegay gabdhahan ama raggan inta live-ka ama daaqadaha soo qabsadaan qaaliladan ku afligaadenayo dhahayo gabar adiga asaygaaga oo gabar isla tihiin baa nin darteed u xumeysay baa sidan u sameysay baa sida u sameysay hadhow ayadoo cunuga yar gacanta wadata hadday soo agmarto xaafadda dariska ay yihiin laba tilaabo markay saa u qaada ayaga caynaya wax ka sheegay gabadhii marka waxay noqotay nabar caadi ah nabar dadamqanaya oo meeshii laga taabtaba uu nabarkii ka damqanayo bay noqotay dadka qaar marka waxay wax ka fiirinayaan qaaliladan ay wax laga fiirinaya ereygaasaa tiri sidanaa tiri qofka bani aadamka sidiisaba marka uu dhibana marka uu yahay waxa ku saaran waa laba arrimood kaliya mid saddexaad kuma banaana inaad u duceyso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas dhibaatada uu tamanayo ama dhibaatada haysato rabbi uu ka saaro waa awoodaa intaas ama inaad gacanta ka hadasho oo qofkaas walaalkaaga ee dhiban aad caawisod kalbiso wax ka dhaxay ma jiraan laakiin maanta oo dhan in video la soo qaado qaalilada lagu mishin gareeyo gabadhii oo cunugeeda wadato la ciyaarayso la macnaha waxa weeyaan dil la farxayso farxad la qaadanayso qaalilada lagu mishin gareeyo maxay soo kordhinay aanan ka ahayn xiqdi iyo buuq iyo xanaaq aanan ka inuu soo kordhinayso ma jiro waa ma jirto haddii maanta oo dhan qaaliladan hadalkeeda inta la soo qaado gabadha loo geeyo ma waxaan xanuun iyo dareen adag aanan ahayn oo ka qaadaysaa jiro waa ma jirto sidaa daraaddeed marka dadka Soomaalida inteeda kale waa inay fahmaan dad baa raba inay buuq abuuraan qaaliladan iyo gabadhan wax ka dhaxeeya oo isu dhiibteen ama isu darsadeen haba yaraatee ma jiraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebaheena ha asturo gabdhaheena Soomaaliyeed ceebahoodan Allah asturo rabbigeenna ha isku kaaya asturo laakiin sheekadan dadka karkarinayo qaaliladana shaqo kuma laha gabadha masaakiinta ana shaqo kuma laha muuqaaladeeda iska duubata ayadoo cid aflagaadeynaysa macaynaysa argimaysid qaalina sidoo kale live-keeda iska soo gasha qaraxadaas iska wada laakiin waxa dabkaan horinaayo waa bulsho kale rabbigeen baa og meesha ay wax naga jiraan arrintan laakiin markaasi u fiiriso oo qof kastoo indheer garad ah uu fiiriyo si fiican u eego oo dareemi karaya in qaaliladan iyo gabadhan waxba aysan ka dhixin oo waxba aysan isu dhiiban oo aysan ilmo isu dhalin marka dadka Soomaaliyeed qaarkoodu Soomaaliyeed dhammood ahane dadka Soomaaliyeed qaarkoodu gabdhahaas walaalaha ah
oo xaqdiga kala geliseen oo aad madaxa isu gelinaysaan rabbigan uga cabsada aad baa u mahadsantiin bishaaro haddaba haddii aad tahay hooyo Soomaaliyeed oo guri joog ah rabtana inay shaqaysato waxaan ku hayaa fursad qurux badan oo adigoo gurigaaga jooga aad gacmahaaga ku dhunkan doonto waliba meel kasta oo dunida aad ka joogto haddaad tahay aabba Soomaaliyeed oo sidoo kale shaqo banaanka ah ka shaqeeya kuna soo daala in banaanka uu ka shaqeeyo adigana fursad bay ku tahay oo ayaad aayar smartphone-kaaga ku shaqaysanaysaa adigoo gurigaaga jooga aniga ayaa taas ka ballan qaaday maanta ila soo tijaabi haddaba manager Shankaroon waxay ku haysaa fursad qaali ah oo adigoo gurigaaga jooga aad lacag iyo dhaqaale ku sameyn doonto isla markaasina qoyskaaga iyo qaraabadaada aad anfici doonto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo caawisayna way ka faa'iideen fursadda qaaliga ah sidoo kale manager Shankaroon waxay ku haysaa dawooyin dabiici ah haddii aad ka cabanayso calool istaag kor olol caga olol jilba xanuun gastric aan ka dhamaan sokor cholesterolkaaga haddii aad ka cabanayso caado wareer iyo ugxantaada oo daciifta rabbi baa bixiye waxay ku siin doonaan dawooyin dabiici ah oo ugxantaada dib u soo kobciya sidoo kale nimankana waxay u hayaan dawooyin dabiici ah oo raganimadaada jag kaaga dhigayso alaabtan ha iga sheegin baa la yiraahdaa manager Shankaroon oo joogta wadanka Canada dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna hore u soo caawisay baa maanta waxay diyaar kula tahay inay ku soo saarto doonta ganacsiga ee lacag sameynta adigoo waliba gurigaaga jooga oo aan qeyrka u gacan horsan waliba ku sii darso sidoo kale dadka waayeelada iyo caruurta yaryar ee aneemiyada iyo dhiig la'aanta la ildaran waxay siinayaan dawooyin dabiici ah oo qaab dhismeedka jirkooda dib ugu soo celiyo waan aaminsanahay fursadda qaaliga ah inaad ka faa'iideysan doonto telephone numberka manager Shankaroon aad kala xiriirayso halkan ayuu kaaga muuqdaa linkigeeda sida tooska aad uga xiriiri doonto dhinaca WhatsApp-kana waxaan kuu soo dhigi doonaa muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya